gudoomiyaha golaha guurta Soomaaliland Salebaan Maxamuud aadan oo maanta qayb ka mid ah saxaafadda kula hadlay gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay laba xubnood oo golaha guurta Soomaaliland ay u xulayeen komishanka doorashooyinka Soomaaliland oo ay u gudbiyeen madaxweynaha Soomaaliland isla mar ahaantaasina la sheegay in madaxweynuhu mid ku soo celiyay ayaa waxa uu gudoomiyaha golaha guurtu carabkiisa ka dhowray in uu arintaasi ka hadlo balse waxa uu hadalkiisa ku adkaystay in ay toddobadii xubnood oo dhameystiran hor yaalaan golaha wakiilada Soomaaliland halkaasina laga sugayo in la ansixiyo Salebaan Maxamuud aadan gudoomiyaha golaha guurtida ayaa waxa uu sidoo kale ka hadlay hadal shalay ka soo yeeray madaxweynaha maamul goboleedka Puntland kaasi oo ahaa in 99% ay maamul goboleedka Puntland bariga gobolka Sanaag ee Soomaaliland ay gacanta ku hayaan hadaladiisina waxa kamid ah nimankii madaxweynuhu iyo golahan iyo axsaabtu soo magaca ee toddobada ahaa madaxweynuhu golaha wakiilada ramiku halkaas ah wixii uu galo ka yeelay ama golaha hay'adaha بدليستو أنا بدل قولها نومة السلطان كنومة هدي وحود حبوي وحقان لكن المرأة ذكر دكتي نقطة وشاي أنا جاي بسوء على الجميع السوق كأي الشارع دايما طالع قرطصار نبت قليل الدلك وحكم مسؤولة مدحوينين عدي كلا ويكاب يساوي لو الدستور بوح الناصيري إن الطلق كلنا هاي وكامنو مدحوينين هدو بقى كافتومو وأهلا وسهلا هذا وسير رد رسوله هوشوا بهالسوق بصدق وحيروك كان بينو حقوق بصدق Salebaan Maxamuud aadan gudoomiyaha golaha guurtida ayaa waxa uu ka hadlay safar uu madaxweynaha maamulka Khaatimo Professor Ali Khaliif Galeed uu ku tagay magaalada Muqdisho iyo sidoo kale in warqadii muddo kordhinta komishanka doorashooyinka ay soo gaadhay golaha guurtida iyo arrimo kale oo aad u fara badan Salebaan Maxamuud aadan oo umuurtaasi mar kale ka hadlayna waxa hadaladiisii kamid ahaa waa muwaadin caadi ah khalal oo reer Soomaaliland xamar tiideedu xaraam u marka برهدان ندير مضحى كويا شرما دولتنا ما ومواطن عادي وحكم النوع يا ما وين دارك بركة تباته أنا وهذا معي لكن بركة تباته وين دارك وأنا إمام هدك دي كور وين تعمل كور رمي وإنتام مدحوينه دولا أسكرتينا واسامح يا الله ملاي سوى السركان يا محكمة بمرية يا محاضر كلامه كتر الله ويقدر أركاب متشلو أنا أقولها دجاج حد من يسود يقول يا ما فكرة